السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada maalin cusub iyo wellness with Ikram. Maanta waxaan rabaa inaa kowdii ku weydiiyo weligaa ma isku aragtay in aad meel ka tagtay meel kala tagtay laakiin xasuusanin sida ku tagtay meesha. So marmar waxaa dhacdo especially like أنا waxaan ku arkaa marmar like baawarka markaa wadaayo inaa maybe waxaa dhici karta guriga ka baxo ilaa shaqada aan tago oo laakiin arkin ama dareemin dhinacyadayda wax ka socdo like straight almost waxaa isdhehaysaa baawarkayga wuu yaqaanaa guriga iyo shaqada straight usaa iswada wuu igeeyaa camal laakiin run ahaantii waxa waaye maskaxdeena maqan waqti markaan baawarka wadayno so waxaa ku fikiraynaa wax kale ama badanaa dadka markii isaas maskaxdooda ay maqan tahay waxa waaye waa la mid ama mustaqbalka ay plan gareynooyin so wixii ay suubi lahaayeen ay ku fikirooyin ay qorsheynooyin ama wixii lasoo dhaafay ay ku fikirooyin labada jeerbo maskaxdeena maqan maskaxdeena markay maqan tahayna dhibaatadeeda leedahay because runtii qofka oo maskaxdiisa maqan tahay waqtiga dhan oo ama wixii lasoo dhaafay ku fikiraysa ama waxa soo socda ee ka walwalayso waqtiga hadda la joogo dhaafuyo so waqtigii hadda la joogay ma enjoy gareynayso dadka xiriirkii ay subso lahayd ma samaysanayso waxyaabo badan oo waxa waaye ama gadaa wixii lasoo dhaafay haddaa ka fikiraysid ama waxa kugu soo socda haddaa ka fikiraysid waxa aad hadda joogtid maanta ku dhaafayso adoo ogeyn so samayn karta waxa waaye si ay maskaxdeeda usoo celiso si ay maanta u dhaafin waqtigan oo hadda la joogo si uu ku dhaafin waxa waaye dareenyaalkaaga inaa ka shaqaysiisid so shanta dareen anaka xawaasis alkhamsa ay carabta dhahaan ama carabi lagu dhahaa or your five senses so shanta dareen aan dhahayna anaka I think kelmada ugu saxsan taas waa hadeertaan aan ku fikiri karo shantada dareen waa indhahaaga dareenka oo taabashada waxa uu gacantaada ku taaban kartid maqalka orintaada iyo dhadhankaaga waa so shantaas dareen si u shaqaysiina so hadda fiirsanoosid masalan dareenkeena la shaqaysiina ani adeeg okay so dareenka waad aan ka shaqaysiina waxa waaye indhaheena so shan wax oo aad arki kartid fiiri dhinacyadaada jooga xataa ani ay fiirinaysid so shan wax oo hadda arki kartid oo adoo ii jeedid fiiri so waxaa arki kartaa maybe sawirka gadaashee yaala laba sawir aan had u jeedaa kamerada ooga jeedaa maybe inay arki kartid xijaabkayga but just ha fiirinin laakiin fiiri kalarka muxuu yahay you know like sawirka u jeedid gadaasheyda sawir oo muxuu yahay you know so waa dhihi kartaa sawir geed waaye meel cadceeda u eg tahay maybe roob camal inuu da-ay sawirka kale faras iyo waxaan uga jeeda miya waasas camal xoolo adi meel lagu haasto so shan wax aa arki kartid fiiri okay hadda waxaa fiirisaa afar wax aad dareemi kartid taabo so afarta wax waxaad taaban kartid ahaado maybe wuxuu noqon karaa shaatigaaga taabo muxuu ka samaysan yahay maradiisa dareen waxa weeyaa xariir miya suuf miya voluta miya dareen waxa shaatigaaga waxaad dareemi kartaa maybe kursigaa ku fadhisid dareen maybe kursiga gacantiisa alwaaxa muxuu ka samaysan yahay alwaax jilicsan alwaax oo waxa miya soft alwaax adag miya waxaa maybe markaa fadhiisid culeyskaaga kursiga soo ugu degsan yahay fiiri dareen waxaad dareemi kartaa lugahaaga dhulka markay yaaliin fiiri lugahaaga si u yaaleen lugta dhancagtaada dhulka mee taalaa dad oo waxaa jiraan farahooda ama suulashooda laabaan markay dhulka oo markay fadhiyaan lugtooda dhulka taalo way ku taagsadaan camal hadda waxaa fiirsaa saddex wax aad dareemi kartid aad maqli kartid so koodii waxaa dhagaysataa codadka oo dhinacyadaada ka socdo maybe inaa maqluusid caruurta qolka kale ka qaylinayaan maybe inaa maqluusid telefoon qof oo dhacooyo weli waxaa isku daydaa inaa maqashid
codka guriga banaankiis ka socdo like baabuurka matoorkiis ma maqli kartaa oo banaanka taagan ama cod oo dad isla hadlaayaan camal banaanka. haddana waxaa isku daydaa inaa laba wax aa orin kartid aad dareentid. So maybe cuntada la karinooyo, maybe unsiga guriga ka daaran inaa ori kartid ama carfin kartid, maybe barafuunkaaga. And then mida ugu dambeyso hal wax aa dhadhami kartid. So haddii hadda masalan shaah caboosid, dhadhami dareen shaah horta. shaah masbuut miya, sokortiisa ma fiican tahay ma ku yar tahay, caleenta maa ku badan, haddaa cashaynoosid cuntadaas ay kula tahay. So hadda halaa sameyse maxaa dareensan tahay ama maxaa la kulantay, maxaa aragtay aadan arki jirin ama aad dareenta aad dareemi jirin. It's very important in aad maskaxdaada soo celisid. And waxaa hadda kuu sheegay waxa waaye waxyaabo yaryar aad suubin kartid si aad maskaxdaada u soo celisid, uga baxdid fikirka badan oo ama shalay aad ka fikiraysid ama aad beri ka fikiraysid ama maanta noolaatid. aad iyo aad important u tahay inaan isbarno inaan maanta noolaano. beri ilaaha qabnaa laakiin shalayne waaba la soo dhaafay alxamdulillah, ilaaha lana soo mootiye. laakiin maanta haddayna dhaafto anakoo nooloo taagan oo fiirinayna khasaaro waaye. So hadda waxa aan kuu sheegay waxa waaye markay maskaxdaada maqan tahay inaa dareenyaalkaaga ka shaqaysiisid 5 wax oo aad indhahaaga ku arki kartid, 4 wax oo aad dareemi kartid oo gacanta ku taaban kartid oo dareemi kartid, 3 wax aad maqli kartid, 2 wax aad oran kartid iyo 1 wax aad dhadhami kartid. waa intaas iyo nabadgelyo. ismaqal dambe oo xiiso leh. aan ha iloobin inaad videohaadka la wadaagtid saaxiibadaada iyo walaalahaaga. waa intaas iyo wanas wada kram. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.